السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta halkan aan hambalyo ballaaran uga dayaya oo aan soo koobi karin miisaanka ay leedahay waxna aan ku qiyaasi karin arooska ama meherka maanta dhacay waliba maanta waa maalin barakeysan oo Jimcaha meherka dhacay waxaan u hambalyeeynaa arooska iyo aroosada ama boqorka iyo boqorada Saad Baashe Axmed iyo Kaltoon Maxamed Awguuleed وصاك مهر كودو كدعي مقالة تنبرعو لحرد الكبر كتبنير قارهن مساجد كسالحية مهر كاسوا مهر آدن ودو سويني أنا سفر لير سومر نيسان واقب قليل لهم في الحديثة إما أنتوا حوسي نبط قوى إلهي نوغي سولمي مهر كي حنون كامليو أن نسوكو بكرين لما أنا نوغ عما يسوى هاي سنة كان ميدا هاي أصحابتي سقاليقا أنا همبليو قار وبلانو ندرينا عروسك وحنا لنا هاي دعاء رسولك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بالخير أو في الخير لما أنت إنه وحنا لنا هاي أمبليو وهذا الشيء نقول لي الله يدوسنا خير قبل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Abdulkani Awale GR waxaan ku sugnahay gobolka Togdheer ee Burco magaalada madaxda waxaan kala qayb galay saaxiibkay meherkiisa oo ka dhacay especially miskiyo saalixiya aad iyo aad baan ku faraxsanahay saaxiibkayga qaaliga runtii waxaan aad baan u faraxsanahay dareenkayga maanta bas koobi karo waayo waan ugu qaali ah. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. maanta way taariikhdu tahay 12 bishii 12 December 2017 maalin Jimcaha waxa meherkiisu dhacay saaxiibkay Saad Baashe Axmed iyo Dimaashiri Kaltoon Maxamed Awguuleed aad baan ugu duceynaa waxaan leenahay noqda uliya dirkeed ducada rasuulka ugu duceynaa barakallahu laka wa baraka alaykum wa jama'a bainakum bil khair wa salaamu alaykum wa rahmatullahi. Bismillahir rahmanir rahim. maanta waxaan ku suganahay munaasabad aad u ballaaran oo kulmisay dhalinyaro badan gobollo badan iyo caasimadaha kala yimid waxaan maanta u nimid xafladda oo meherkii saaxiibkay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. maanta ay tahay maalin Jimcaha bishuna ay tahay bishii 12aad sideedii halka waxaan habaliyo aan la soo koobi karin hawada u maranayaa caruuskii caruusada saaxiibkay iyo Dimaashidii Saad Baashe Axmed Xaashi andaha Dimaashidina Kaltoon Maxamed Awguuleed waxaan leeyahay noqda kuwiis ku waara ubad khayr qabana kala hela insha Allah.